Mohammed, please tartiib u hadal. Video waa duubanaya. Thank you so much. Yes, you can see that's what we call stay at home. Please, if you are watching this video, stay at home. Gurigaaga joog. Yes. Sawla socota ma aad arkaysan gurigaaga jooga. Gurigana marka la joogo Soomaaliya leeyahay. I love it. It's full of entertainment. Wala sheekayna, wala qaylinaya. We have our own freedom. But for me, it's hard. Camera the hort halo. You know, I need to focus. I need to, feel like dadka wax duubay la fahmi kartaa laakiin always waxa wuxuu ku fiican supernatural as I did right now Maria Mohammed waa ku bariya tartiib u hadal dad baa inta sameeyay so my beautiful people you can see behind my back there's a video was mar badan ba weydiiseen war Rockstone oo flag noo soo sameey yes waa soo sameeyay but the reason la hadda idin soo freestyle videos aad daawad doontaan gadaasheeda yaalan oo aan soo qaaday waan ka hadli doonaa the reason was like videos waxaan duubay yes before Ramadan aan duubay maalin aan breeze iskaga siiyay wiila abto ahay ay aniga ku bilowday coronavirus soo dhahayo ku bilowday aan arki doontaan soo marka videogaas qayb ayuu si leedanbo qaybtaas loo soo sameynaya ramadaanka gudihiisa marka my beautiful people ya hadalin ku daalin daawasho wanaagsan videogana de waxaan dhahay mataqaanaa kaba mar hore ay ugu dambeysay aan soo gato marka walaalayaal hadii aad daawad doontaan videogan waad waa yar si yar daawad doontaan kaba yar oo raqiis ila dooqo kabayaasha ay idin dhahay mid ii soo xulo been ninka ugu gambanayay ku raqiis midka cadaanka maana madowga mid ay soo xulo because it's very expensive cadaanka anigana wax qaaliye I cannot afford my beautiful people so videogo daawasho wanaagsan aad baan idin salaamaya Ramadan Mubarak you guys are the best beautiful people as you can see sunnadana sayga muuqato garkina waa isku dhaxyaa bal please commentigoos waxa ku soo qortaan Rockstone aka Ali Ahmed Dhagax Sabriya cadow guud xume aad baan idin salaamaya see you si fiican u daawada si fiican I hope you can see me right now. I think waxaan galayaa duubka ama jaqbo just waxuuna inaan iska soo duubo should I wear okiyaale because qoraxda ka arkayo banaanka I think wait hadda haranaya atora malmalato atrisha malmalato talk and say what's on my mind because Facebook boy with the walk holding that what's on your mind yes guriga ku jiray hadda soo baxay I feel like inuu hadda dhisto kale because waxa la soo jibiyay dukaanka kabaha sneakerka magaciisa la dhaho JD meeqa laga dhigay mataqaanaa kabaha 50% discount laga dhigay kabaha yes so intii la socoto so wiligeybo shay qaali I think waa dhifi qalil ina gatay minimalism waxa la dhahaa dadka dhaqaalaha badan ma arag have you guys ready with me let's go I don't know centerka inay camera guriyeen kale maadaama xorun joogto iskaba gato waxa igu dambeysay samarka hore igu dambeysay hadana bay sheegeen waxa ma dadkii bro come on listen me Andre low A to the Z most of shoes that are Jordan kabihina waxa loo bedelay noocan loo bedelay so light let's lama I'm gonna try so midkana I don't think like inay yihiin ku isu saaraya wili waxa raadinaya kabo dib ugu weyn qabo waxa waaye once come to shopping ama waxa soo gadanayo dadka waxa ahay ku noqnoqdo waqtigooda inta ugu badan window shopping kaga dhamaado so I'm gonna try the Puma shoes although it's too big though I don't really the 44 one because to ana jecel kabaha markay ay taas soo burburiyeen still don't my high but we're gonna see waxa aan maanta la hadiya hata maanta eli waayo tomorrow is another day so my beautiful people right now wili wax fiican ma arkin waaniga ahaantaydo ikhaliyo laakiin adika idin deynaya kabo different shoes ay to say amidi so doro come on man different shoes different game different girls this guy he got some bar stuff so what I was saying like I didn't get something that makes me like amaze me I can amaze you bro come well, I'm telling them she can amaze you in many different ways she can look this one is very beautiful shoe
It is very big and very popular in the Sweden country. Scandinavia, like I'm more into Nike or We are Nike. Look at my Adidas. shoes. Look at my shoes. I see. It's drip style. You see the difference? I'm Jordan boy, brother. You're Jordan, but I'm Nike. Yeah, that's the difference. Yeah, Bro, but look at her shoes. it's actually She's sick, though. Nike, and Nike. Everywhere Nike. This guy is. I'm gonna open YouTube for you, brother. You got really good personality. You know what I'm saying, fam? Only positive vibes. Yeah, that's what I'm telling you. People need positive 5 nowadays. Yeah. We are in a Corona season, bro. Yeah, man. Yeah. We need Corona to, season, maybe we die tomorrow, man. You never know. We need to spread the positive, bro. Intaan kabo, I will come back tomorrow. Hal iso dooro. Si aan ugu soo noqdo berri. So, all these are new, right? Yeah, it's the newest model, man. So And I'll my give you a good price as well. really. Very good price for you. Han har videobevis va? So I'm talking to my fan. I was saying to them, I'll come back tomorrow. If they pick one, I'm gonna get it. So Yeah, if let the fans pick, man. Exactly. It's all about the fans nowadays. yeah. Look, I got my fan over there. Yeah. My fan. That's No, my you fan. know, later he was saying like you're good, like acting. Is it right? Ja. Are you acting movie or music? Vad är det? Vad? Den här, alltså det är så här, inte movie. Men The typ short films, like like short story films. Yeah. Like I know. them YouTube ones, 30 minutes and that. Really? Have you done before? Yeah, boy, she just look how she's beautiful. Yeah, no, I can tell You that think she's she's beautiful, though. beautiful, Yeah, I Do can you tell like that. Me? Yeah. As a sister, yeah, I like it. exakt. Very, yo, good man. Yeah, Good no. movement. Of course, I got one. That's good. So I think I kind of like this one, but you guys, I think I did that with so at least I can pick one of these tomorrow, because you guys are the best. I'm telling you. So marka kii ugu cod badan oo la dooro kan kii ugu cod badan oo la dooro ayaan qaadanaynaa beri. So let's go, my beautiful people. I think shalay barafaa da'ayay maantane Joey seems like summer inuu yahay, which is whatever. So yeah, Saeed's right here. Saeed ay imaaday. As you can see, Corona ma wadanin. Corona horta Corona iska dambeysay. Corona jiraan iska dambeysay. Intee leeg ayuu ku gaarsiiyey Corona? والله دي بدن ودتي كرتي كلية ما هي ومدة دم الدنيا دم لكن هي أكشن بدن ودتي شغال بحياة مكتب قارو حاجة ضدك الله يعبد المسلمين كل شيء يعني دين ترجمة يعني لو خلط يعني habka diinta loogu adeegsanayo cudurkan imaaday. مدة حارة شيخ شيء جاي وحده شكرا كورونا أو كلام waa maasanta camal yani يعني كلابكي على حيرتي علي فسقي حيرتي marka waxaan dhahay muxuu ka wada yani dad naf bini aadan dhimanayso waxa ugu qaalisan adduunyada exactly maxaa kalaab la xiray yani maxay macna sameynaysaa yani xogaa dadka ma ogtahay waa habkii u adeegsanaya si kale u fikirayaan dhibaatada waxa la isdhihi karaa dadkaas oo kale waxa waaye hadda waxaan waa wax dadka dhan caamimayo ma muslimiin gaaruma gaalana gaaluma waa adduunyada dhan marka waa in sa caawiyo oo marka laga gungaaro exactly dawladii ugu weynaa cabaadayo oo mataqaanaa doonaya caawimaad hal meel kuma ekaadii oo fiirisay taajir iyo faqiirbo umadina wada simay ما فهمت horta that's one good thing cudurkan cunsurina ma ahan ummadii waa wada simay qabiilkaaga haduu yahay landheer ama langaab adeer corona waxas kale ma garanayo dhibaatada ugu badan oo aad soo socoto waxa waa sida economic dhaqaalaha sanadadan especially soo socda shaqo la'aan ku dhacday in ka badan crisis-kii markii la xijiray labada kun sideedii so waxaa la kulmay nin yiraan Michael wuxuu sameeyay maxaa loogu talagalay corona so Michael what is about this machine This is just a demo for showing how we can use single board computers with this unit, and then you have a small OLED display. It's about €4 in Sweden, and if you buy it from China, it's cheaper. Even cheaper. This is just for demonstration. This is
ultrasonic distance meter. Okay. So you set up, and then you have a power regulator. So you have a 3.3 volt into this unit on the display also. So how will we use in Corona when it comes to the Corona? Yeah, there is. You can use, for example, infrared temperature sensors, so you can have a checkup for people how their basic health are. You can use EKG or you can also test the oxygen level in the blood, and that is a very good first indicator of your health.